daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii kabtanka isboortiska oo xad dhaaf aad kala socon doontaan barta aan ku leenahay Facebook. barnaamijkana waxaa idiin qaada dhigaya anigoo Cabduqaadir Boosa, dhanka farsamaduna waa DJ Borre. ka bogasho wacan. kabtanka isboortiska waa kulanka dhalinta maanta. ha iskarinin dhiigo kurbayuusan kugu ridin kelmadaheena qosolka kuleelqa saxa u arag. qabiirada kubadda cagta ayaa dhaliil weyn u hubiyay macalinka cusub ee reer Puntland Saciid Deni qaabka uu ku soo xushay line-upkiisa garoonka. macalinkan ku shaqeeya afkaarta Aranjan ayaa line-upka xidigiisa u soo xushay qaabka wuxuu iga caawiyay kursiga, taasoo ku cusub masraxa guud ee kubadda cagta. Deni ayaa sidoo kale nambarada ugu muhiimsan kooxda sida 10aad, 7aad iyo 9aad kala siiyay xidigaha reer Garowe Gaalkacyo, kuwaas oo naadiga u ekeysiyay nidaamka reer boqor ee xulka Sacuudi Carabiya. sidoo kale FIFA ayaa ganax qoorta u gelisay 4 xidig oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Daraawiishta, kuwaas oo qamaar ku sii sharatamay bal inay heli doonaan nambarka 7aad ee kooxda Puntland, walow wiil reer Gaalkacyo oo ku naaloonaya garabkaas. daaficii hore reer Gaarisa Duqbilow ayaa weydiistay ilaamaha ammaanka Mareykanka bal in kulamada uu wajahayo xirta shiiqa ay xaadir noqdaan baleyska dalkaasi, taasoo ka dhigan in xidigan uusan diyaar u ahayn kulamada iskululeysiga. 40 jirkan ay macquulka tahay in kulan kasta uu nabaro eedda cusub ayaa sidoo kale gigida safari ku tilmaamay garoon qoyan oo aan si fiican ugu diyaar garoobin kulamada horyaalka. kabtanka xirta Cabdixakiin kaasoo kubaddu 1 mitir xitaa u jirta aan qaban karin ayaa haddana badi guuleystay shaxdii uu kaga hortagay Maama Malyuun, haddana guul ka haysta wareegga koowaad ee kulankii Duqbilow. Kablo Faarax walaalkiis ayaase weli qaba shaki ah in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu fikrad weyn ku lahaa xoog weynihii 2 mitir ahaa ee nagu qasbay in eedda nadiif aan xushmayna maanta. xidigaha ugu saameynta badan kooxda baarlamaanka ayaa wada kacdoon lagu ceerinaya kabtanka xukuumadda Xasan Cali Kheyre. kooxdan filla Soomaaliya looga yaqaan laacibiinta xanaaqsan ayaa dhexdooda iska haynin bedelka ugu wanaagsan ee kabtankan familkiisu sida ba'an u taageeraan. geesta kalena kabtanka baarlamaanka Mursal kaasoo qaab ciyaareed liitay ku jiray bilihii ugu dambeeyay ayaa u muuqda mid shax fahamsan kooxda lagu naaneyso kuwa xanaaqsan. line-upka macquulka ah ee kooxdan baarlamaanka waa Mahad Salaad, Odowa, Fiqi, Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Cosable oo uu shaki ku jiro safashadiisa maadaama uu ka soo kabanayo dhaawac dhanka dhaqaalaha oo saameeyay 8 February sanadii 2016. kabtan Kheyre ayay u badan tahay in dhankiisa ay ka garab ciyaari doonaan daafacyada lagu naaneyso Silfaha reer Hiiraan Goodax Barre iyo garabka 11aad Khadiija Maxamed Diiri, taasoo 11 gool iyo 7 caawin u sameysay kooxdeeda xukuumadda xilli ciyaareedkan, waana in ka badan inta laga helay xidig kale. baraha bulshada oo lagu jaxjaxay warbixintii wariye Tera. wariyahan sida wanaagsan ugu hadla lahjada Irishka ayaa warbixin u muuqata mid hal dhinaca ka sameeyay line-upkii damajadii, laakiin saxafigan ayaa warbixintiisa ku xusay in garabka xukuumadda Goodax Barre uu haysto 2 boos oo midkoodna aan laga dhiibin canshuur heer federaal ah. laakiin 70 jirka reer Maxaas ayaa laga filan karaa inuu dhaho 2 boos waxa ay la mid tahay wax la'aan maadaama hore uu sheegay in wax boos uusan ku lahayn magaalada Muqdisho. wariyahan laga yaabo inuusan garanaynin xitaa degmada ay ku taalo filla Soomaaliya ayaa haddana shacabka u sheegaya in sir badan uu ka hayo magaalada Muqdisho. 40 jirkan beeca horta ah kaga yimid Somaliland ayaa fiisa Turki ah ku bedeshay warbixinadan ayaa hadda kooxa ay kamid yihiin Wadajir iyo Hilo Qaran u arkaan xidig ay ka saacidi karaan fiisa Yurub ah si warbixino uga sii diyaariyo isla kooxda haatan Ankara keensatay maadaama fiisuhu haatan u muuqdo mid saameyn weyn ku yeeshay kubadda cagta. xiriirka kubadda cagta ee Kenya ayaa go'aan uu shalay soo gaaray shaqada kaga eriyay wakiil ciyaareedkii Soomaaliya ee Tarsan, halka midkoodiina ay kala baxeen Soomaaliya. Kenya ayaa Soomaaliya u aragta mid suuqa saamileyda caalamka u xaraaj geysatay garoon uu muran kala dhaxeeyo, iyadoo Kenya ay doonayso in la cadeeyo saamiga kuraasta ay xaq u leeyihiin si gunooyinka ay uga helaan dhaqaalaha ka soo xarooda iibka ama shirkadaha xayeysiinta. kabtankii hore ee gobolka Banaadir Tarsan kaasoo hoy la'aan baahsan ku wajihi raba Nairobi ayaa hadda u muuqda mid ku soo biiri doona tiro laacibiin taageero nabad iyo nolol ah dartood ku jiifa hoteelada ugu qaalisan Muqdisho tan iyo inta la xalinayo saamiga kuraasta ee garoonka ugu weyn qaaradda Afrika.
agaasimaha ciyaaraha kooxda Villa Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa ugu dambeyn saraakiisha Villada ku qanciyay inaysan bixin lacagaha waalida ah ee lagu kansali karo heshiiska Axmed Madoobe uu kula joogo kooxdiisa Jubbaland. Diyeeshaan haysta daafacyada Kenyaanka ayaa u muuqda mid kooxdiisa u hibeynaya 4 sano uu u kordhinayo qandaraaskiisa oo ku eg bisha July. markaas uu xor kaga tagi karo ama uu xaq u leeyahay qandaraas kale oo dheeraad ah sida ku xusan heshiis waqtigii xuduudaha la soo gudbay. Villa Soomaaliya oo 10 wanaagsan ka haysata xidigoodii jabiye kaas oo looga adkaaday Garowe ayaa markan diyaar u ahayn tartan ay ku baxdo malaayiin dollar maadaama ciyaaraha qaar loo maareyn karin sida kulankii Baydhabo. markana xubinteeni wargeysyada iyo waxa ay qoreen saake wariyaasha Maxamed Muude iyo Najiib Aadan Najiib ayaa sida rihaan oo la macaamilay xidigta Xaliima Gobaad iyagoo xitaa nooca makeup-ka ay doonayso fadhiga ugu keenaya taasoo xidigtan booqashadeeda Soomaaliya ka dhigaysa mid taariikh weyn ugu fadhin doonta Astaan Sports cadadkii saake. لاعبka Mahad Salaad ayaa mutaysan kara ganaax 3 kulan ah markii uu si jilliin ah ugu qiirooday go'aankii Kenya ee shalay maadaama konton jirkaasi xilligan uusan kala jecleen in Kenya shaki gelisa xitaa lahaanshaha garoonka xulka ee Villa Soomaaliya. Garbaare News cadadkii maanta Uhuru Kenyatta iyo Abiy Ahmed waxa hogaamiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. FIFA ayaa Soomaaliya ku amaantay qaabka ay u xanaaneysa xidigaha xaalkoodu bariga dhexe yahay iyadoo Soomaaliya ay number 1 kaga jirto xanaaneynta xidigaas halka Hindiya ay kaalinta ugu hooseysa kaga jirto maareyn la'aanta xidigaha xilli dambe lagu arka xaaladahan oo kale. Washington Post warbaahinta maxalliga ayaa qoraysa in kabtanka Daniel Jaafar oo qoslaaya la arkay markii ugu horeysay kadib imaanshihii Farxiyo Kabayare. dadka deegaanka ayaa ka codsaday in xidigta lagu naaneysan Neymar ee reer Mareykan sanadkiiba mar imaado si wiilkooda uu sii joogteeyo bandhigiisa qosolka. bogga labaad ee Daniel Sports. intaas ayaynu ku soo gabagabay doonaa barnaamijkeeni kaftanka Sportska. barnaamijkan waxaa idin qaada dhigaya aniga Cabduqaadir Boosa, dhanka farsamadan waa DJ Borre. taniinta barnaamijkan waxaan ku kulmi doonaa axadda xigta hadduu eebbe saamaxo. waa Cabduqaadir Boos oo idinkaga tagaya mid kalmida kaalmaha suugaanta uu ku luqeeyay Kiyari waa dooqi ayaan Xasan Gabin daawasho wacan. qabasha iyo qoftan toosana umanidu dhaqaaqo badhigid sama way qaadatay qoftu dhalada sanaha qorqorna ilwahada qortaagana qabasha iyo qoftan toosana umanidu dhaqaaqo badhigid sama way qaadatay qoftu dhalada sanaha indihi qabta laqushur sana كشقها يبتاقي ريسنا قدر باسمي يتقني سنة إنده قبطة لقشور سنة كشقها يبتاقي ريسنا قدر باسمي يتقني سنة الله قرب سنة أوقاف سما يتخلن شذي قيمي سنة الله قايا يا قلبي حننا فقل سمي قصر في عنا الله قرب سنة أوقاف سما يتخلن شذي قيمي سنة الله قايا يا قلبي حننا